tani waa dhacdo naxdin leh hooyo saaka u soo baxday inay xoolaheeda soo daajiso ayaa waxaa meedkeeda laga soo qaaday meel cidlo ah waa Sacdiya Cabdow oo ah hooyo 5 caruur dhashay da'deeda 30 kor u dhaafaysa hooyadani ayaa waxaa lagula kacay kufsi kadibna la sii dilay waxay dhacdadani ka dhacday inta u dhaxaysa tuulooyinka Dhasheeg iyo Riba hooyadani ayaa ahayd mid saaka si nabad ah xaafadda uga soo baxday balse meedkeeda hadda waxaa la keenay isbitaalka magaalada Wajeer qaar ka mid ah dadka deegaanka Qorof Xaraar ayaa si kulul uga hadleen dhacdadan iyagoona laamaha ammaanka iyo gudoomiye xaafadayaalka deegaanka Qorof Xaraar iyo sidoo kaleba degmo baarlamaaneedka Tarbaj ka codsadeen in gacan ku dhiglahaasi laga caawiyo sidii lagu soo qaban lahaa gabadha Allah u naxariisto ay ku dhimatay meel Riba Dhasheeg meel u dhaxayso wala xaafadaan meel duur ay ku dhimatay إنا لله وإنا إليه راجعون. كان كحقتر ندشي إلهي جنة فردوسها كي. ثم اللي جاي كلمتنا إلهي هكوري. ماشى كبدا هم هنا قريبه مال مركا ويرته هل كيلومتر وحير كير أي النكاس كبدا بوس. ولا تقال لي سنتاس. إيه ماشي أي نفط وقب عليه. هل كيلومتر وكله كبدا قف كلجيسة أنت عاز قف لا تقالم كري لا تقالم نرجع إن روح بالعانة ولبل النوجة ووقت كان كليل كأجوب أنت قفز كعلن لا دويس كعليس هسه حتى إلها وترجع إن ما أنت أي ماشي ذا كل ما الله ونحرست عاد سنة marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ninka xaq darrada suug inuu ilaahay gacanta soo geliyo dawladdana waxaan ka baryaynaa arrinteeda investigation ka asaga inay xoog saarto dadweynaha dhulka joogo dhibaatada barga dhacday tukala ku soo socdo qofka asaga ninka asmaray ninkii arkay إنك رات كاس مالك أركي عن كبرينا إن السوق تبقى عن لقرنن عن كبرينا شكرا أما كبرناس إن النكاس كل اللي مال دور حول الحد ماشي أنا جارك هذا حق أيام تغني ده كرت وتغني هني مركز وتغني نك اللي جوتهم ورئيسني وحنود ده ساعة كأريس أوفيس هل ساعة بر لح ساعة نرجع كل يوم صعداء ماذا كانت الدب الراعي ميت كذا كردا ماشي أدنيك كوكب صديقي ماشي نفط وجوب حدنا ويكل الدرق سنايا سيدنا كعودك شيء عمر أخبار اللي تقال أنت 6 حملات ماشي ميت كيل ماشي نفط وجوب بعد ماشي كل درة 6 حملات ويكل عين رنت أساسا يقول عادي كل وقدرت لا إنك قدرت لين أدو أرحن درن هي أريد أسكت البي أنا واحد عبد الله مع الحسين عبد الله يروح كم عدل فما كانسل وجربور بيس جمان قرف حرار سب كاونتي إنا لله وإنا إليه راجعون قبل ما أنت كوجريوتي هالكمدة قرف حرار وط وأقول حيث الشيء يرهبا سعدية عدوا على سو قبل لو الله ما جاي ويرت أفرع عنك مشان لحبة واقع الم هذا أنا قعدت وقتي اللي قلت حسوسا ولا اللح مشان ولا ذلك كلام waxaan ka codsanaynaa laamaha ammaanka gaar ahaan booliista iyo jiifafka meeshaas waxay u dhaxaysaa 4 magaalo qajajaawan Riba Arbaqayraansi iyo Wajarboor iyo Dhasheeg waa 5 jiif santagoodu 5 jiif isuma jiraan 30 kilomitir markii la yiraahdo iskooya 40 kilomitir kama dheer ماشي وغيرنا واحد جوجا لبا جيف بوليسنا واجوكتا KBR واجوكتا وها حقيقة نكاس انت سويتولا مد كمدازون كيما نن عركا كسو دحاي maaha meel kale dirso noqol imaadina malaha marka waxaan ka codsanaynaa dawladda qof kasta waajibkiisa inaad qaato laamaha ammaanka oo jiifafka u joogan grassroots inay baaritaankaas xaqiijiya ninkaas gacanta lagu soo dhig ma aha qof kasta inaad qof kale ku hadlee
looma baahna arrintaas waxaan u baahannahay caawa ilaa biri dambo inay gaarin inay biri dambe gaarin ninkaan biri la soo qabtay raadkiis waa lagu joogaa waa la raadi rag baa ku daba maqan qof kastoo tuulo ninka qof ka mid ah joogo inaad ka qayb qaata dawladda ninka wakiilka deegaanka Qorof Xaraar ayaa u tacsiyaday qoyska ay ka baxday hooyadani dilka lagu geystay deegaanka Qorof Xaraar isagoona ka warbixiyay dhibaatada loo geystay hooyadani maadaama uu kamid ahaa dadkii meydkeeda wax ka soo qaaday ilaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah ilaahay ma maskale ilaahay maartay meydka nabad noo siiyay oo noo soo celiyay waxa kale oo tacsiyo diray inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun eheladii gabadha ay ka baxday dhamaan waxaan u dirayaa tacsiyo taasi waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah siiya ilmo yar ay ka tagtay kuwii maartay isqaambaarsado oo maartay ilaahay askuri Allah ka yeela runtii waa arrin dhacday aad noo taabatay annaga halkaan baan ka tagnay markii warka aan maqalnay ilaa meesha goobta ayaan tagay gabadhaas odayaasha say u sheegeen horaan waaye aad bay ninkaas aad bay ula dagaashay aniga naftayda baa ku soo qaaday madaxeeda soo qaaday gacmaha halkaan ugu yeela waa dareemi kartaa ninkan nin weyn buu ahay waana xooji si toos gacmihiis way ku yeelaan markaan walaalayaal waa arrintii raan leh oo maartay naxtin leh inay dumarkeenni gabdhihii nala dhashay hooyayalkeen saas loo gala xawayaanimada noocaas loola dhaqma waa arrin aan aad maartay aan ugu tiraanyoonay runtii waa arrin taabatay walaalayaal taasne uma saamaxayna insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaad maartay gacan lagu soo dhagi doono insha Allah saacadaha ugu soo dhow waxaan u rajaynaynaa in lagu daba joogo iimaan u baxayba meel kastaba waa lagu daba joogaa insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa azza wa jalla inaad gacanta noo soo geliya runtii waxaan in bala qaadahaynaa insha Allah tii ugu dambeysay inay dhamo doonto oon dabagal ku hagaajin doono oon la tigsin doono maartay meel kasto oo cadaalad la siinaysa insha Allah hadii la yiraahdo intaas ayaa warkayga ku egyahay wixii kale oo si weydiin kartiin wariyalka waa diyaar shukran lamanka ammaanka oo sida ay noo garab istaageen waa ku mahadsanyihiin runtii askartii Tarbajo constituency xaqooda ay naftooda waa ka imaadeen Wajir constituency DCI department way ka imaadeen laakiin waxaan codsanahaynaa meelaha saas oo kaleeto ama centerska dhasheeg oo kaleeto magaalooyinka weyn oo meelahaas ku dhagan in dhaqtariin oo maartay postmortem hagaajin kara in ay county government ay geeyaan sida aan maartay maanta aan ugu soo dhicin ilaa ay county meet inta maartay 4 saac ama 3 saac la dilay oo reeli uri aan u soo doorno halka istaal dhaqtar aad bay u xanuun badan tahay waxaan kaloon ka codsanaa county government-ka anigana MCA-ga lagu soo doorto Qorof Xaraar ward Wajir East constituency hadaan yahay taasna aan meel ka saari doono xagga baarlamaanka waxaan hubinahaynaa in dhaqtariinta ay u fijignaadaan sida ay laamaha ammaanka wax migi soo yeeraan ay kan u fijignaadaan oo arrimaha noocaas ay u hortagaan oo degdeg ay ku hagaajiyaan si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horeysay oo dhacda noocan iyo kala ah ay ka dhacday ismaamulka Wajir iyadoo loogu baaqay laamaha ammaanka iyo gudoomid xaafadiyaalkana inay gacan ka geystaan sidii lagu soo qaban lahaa cid walba oo fal kufsi iyo dilba kula kaca qof haweenaya